سعيد صلاة علمي ما يركع عصب دقمة قالكعية دولة قبلات كقلمدو ودوام مقعبي مدحوين أحمد دعالة قيل حاف أيام مانتا يكون وضتشي لقاتي حبناها قدو دور الشويكا دولة هوسي قالكعيو سعيد صلاة علمي سعيد ببل أيا بلان قاضي إنو كشغين دولة هرمريتا مقالدا إسلامر كانوا حوق وصار دونو بلعدة قودة مقالدا شركة كواد بأيوة عشان waxayna ku jiraan si u dhisi lahaayeen hawlahoodii ay u bilaabi lahaayeen madaxweynuhu wuxuu dadaala ku siiyay degmada Gaalkacyo oo intii dayac badan ka muuqdo dhan nadaafadeed dhan mataqaana wadooyin dhan caafimaad dadkii qashin ku habsaday kululiye ku habsaday sidii wax loo qaban lahaa ku booriyay runtii waa hawl adag weeye waa hawl weli mataqaana faraqa la haysto أسيء محكمة دفتها والدوينة ماشى واحد راعين دائما قاعد ضد السيروة أو الشقية أو بركة عياش هي معمول كذا هي مثلا هنتلا هي أداها النرد جرية وواجب كبرها هو سيء عن واحد هاي عن شهوره بالله مثلا عن سياسة هي بوق قراء عن جيرين دوغا مجال وحوي مسؤول وياها يدتكم نوعية كذا دوان معارض أي شيخ يا شريف وياها دوغا مجال إنه السياسة رؤية والله إنه بتاع محاور يا سوارات جب كلام ودار نحو معه وح بالبر اللي تو بالبرسن حنكي لو سعري لو مرعي تاسع كانت إنه إنهم بدأ صار إيش الدعوة شو شيء إنه حلك عصم العالم بالجارة والهدات وكالندرو وشيء سياسي خمجد وعوي سيدي قال كعير وصلت بين لها الدبلة وهو قال في عمره أول لها بدل الله بلوضة وحلا يقوان العادي ما تريك هدي يعني ساسوي هؤلاء هو بالله إنه الحق كان سعيد صلاة علمي قدوميها عصوبة دقمة قالكعية دولة قبلات قلمدو وحباق قدري بالشدة قالكعية إنك لا شغيان هرمرينتا مقالة قالكعية waxaan kaliya oo ku adkeenaya dadweynaha Gaalkacyo iyo mas'uuliyiinta waaxaha iyo hoggaamada dowladda hoose in hantida dowladda hoose ay leedahay ay gobolka Gaalkacyo yaala in la ilaaliyo in mataqaan dawladda qashinka qaadida isku raashiha la ilaaliyo in muddo kala guurka aan hantida lagu takrifay oo la kala caawiyo in degdegskii mataqaan la ilaaliyo inaysan dhicin ka faa'iideysi iyo kala guurkaas in la kala caawiyo waxaan ka codsanayaa booliiska iyo saldhigga iyo hay'adaha nabadgelyada inay hantidaas sida gacanta ay u jeedayeen oo ay iska xisaabaan waxa weeye gobolka waxa weeye muddo dhisnaa meel fiican buu marayay 2 sano 3 sano dib u dhaca ku dhacay in la nooleeyo oo xiriirkii caalamiga ah iyo xiriirka samafalka iyo ururada bulshada loo soo nooleeyo oo afmeeshanada iyo kala yaaca iyo qaabka fooshan oo siyaasadeed u dhaxwado laga joojiyo waxaan ka codsanaynaa dhismaha hadii khayr ka imaanaya aad u saad laakiin aan looga darin Gaalkacyo inaan la soo lacag iyo siyaasad iyo kala qaybin iyo Ahmed Ducaale waa tagaya farmaajo waa tagaya khayr waa tagaya laakiin Gaalkacyo dadkeedu waa jiray taas in loo fahmo weeru isku duubnaadaan ay mataqaanaa midnimadooda iyo noloshooda ilaashadaan intaas aan ku soo jeedinahay kula hadlaaya waxaan u baahanaa dadweynuhu naga xogaalsan yihiin in aan cid mataqaanaa isbedelka in la aqbalo madaxweynaha awoodda asaga leh rasmiga markii galmudug madaxweyne doorataa waqti la ii saacidinaya ay sheekooyinka ugu fakaraya wax socon kara ma Gaalkacyo iskale maarkii ayada iskale golaha deegaanka iskale cid ku faragelin ka dhaamay Siraaj Yuusuf galmudug TV قال كعيو